Taliyaha guud ee ciidanka booliiska Kenya, Douglas Kanja, ayaa amar ku bixiyay in si degdeg ah isbeddel loogu sameeyo kooxda ciidanka ilaalada khaaska madaxweyne William Samoei Ruto kadib markii shalayto uu halis galay amniga madaxweynaha xilli uu madaxweynaha ka hadlayay munaasabad dadweyne oo ka dhacday deegaanka Ganze ee ismaamulka Kilifi. Kanja ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay fashil amni oo aad u culus islamarkaana ah arrin khatar weyn ku ah amniga qaranka. Xilli madaxweyne William Ruto khudbad ka jeedinayay munaasabad mahadcelin oo lagu qabtay Ganze, nin dhalinyaro ayaana si lama filaan ugu gudbay ciidamada ammaanka isagoo u soo dhowaaday madaxweyne William Ruto xilli uu shacabka la hadlayay. Falkaasi lama filaanka ayaana sababay jahwareer kooban iyadoo madaxweyne Ruto uu si kedis u hakiyay khudbaddii uu waday, halka ilaalada ammaankiisa ay si dhaqso leh u qabteen ninkaasi una kaxeeyeen meel ka baxsan goobtaasi. Inkastoo xaaladdu ay ahayd mid kacsan, madaxweyne Ruto ayaa ciidamada ammaanka ka codsaday in aan si xun loola dhaqmin ninka dhalinyarada ah. Wiilkaasi iska daaya, ayuu yiri madaxweynaha xilli ciidamada ammaanka ay kaxeynayeen. Wax yar kadib, madaxweyne Ruto ayaana isku dayay inuu dejiyo shacabka isagoo u sheegay inaysan jirin wax walaaca. Inkastoo ciidamada ammaanka si dhaqso leh xaaladda ay u xakameeyeen una soo celiyeen nidaamkii borotokoolka, Kanja ayaa sheegay in wax kasta oo la xiriirta jebinta nidaamka borotokoolka iyo ammaanka madaxweynaha aysan ahayn wax la aqbali karin. Taliyaha booliiska ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in la sameeyo guddi baaritaan gaar sameeyo si qoto dheer ay u baari doonaan sida falkaasi ninkaasi u sameeyey ayna ku dhacday. Wuxuu sheegay in dib-u-habeyn degdeg ah lagu sameynayo ilaalada madaxweynaha ay tahay mid lagu xoojinayo habraacyada ammaanka laguna daboolayo meelaha nugul. Wuxuu sidoo kale ugu digay shacabka Kenyaanka ka qaybgalaya munaasabadaha madaxweynaha in si degdeg ah ay u raacaan nidaamyada ammaanka, isagoo sheegay in cid kastoo isku dayda inay jebiso habraacyada ammaanka tallaabo sharci laga qaadi doono. Booliiska qaranka Kenya ayaa sheegay in weli ay ka go'an tahay ilaalinta ammaanka hoggaanka dalka ugu sarreeya iyo ka hortagga dhacdooyin la mid ah in mar kale ay dhacaan. Dhacdadan ayaa sidoo kale sababtay qorshe dib-u-habeyn lagu sameynayo cutubka ilaalada madaxweynaha ee loo yaqaano Presidential Escort Unit, kaasi oo hogaaminayo Noox Maiyo. Madaxweynaha iyo qoyskiisa ayaa waxaa ilaaliya ku dhowaad 200 oo askari oo ka tirsan ciidamada sida khaaska u tababaran ee booliiska GSU, kuwaasoo si gaar loogu tababaray sugidda ammaanka madaxtooyada. Marka madaxweyne uu safar sameynayo, ciidamada booliiska deegaanka uu booqanayo ayaa sidoo kale ka qayb noqda ilaalinta. Saraakiil ka tirsan hay'adda sirdoonka qaranka Kenya ayaa iyaguna door muhiim ka qaata sugidda ammaanka madaxweynaha. Dhacdadii ka dhacday Kilifi County ma ahan markii ugu horreysay ee madaxweyne Ruto la kulmo cabsi amni. Bishii February, dhacdo kale oo la xiriirta ammaanka ayaa ka dhacday Mombasa, isla gobolka xeebta ka tirsan, markii nin aan la aqoonsanin uu si lama filaan ugu orday madaxweyne Ruto xilli uu la hadlayay dhalinyaro ka faa'iideysanaysay barnaamijka Nyota ee horumarinta dhalinyarada. Dhacdo tan la mid ah ayaa ka dhacday ismaamulka Wajir ee gobolka Waqooyi Bari, xilli nin dhalinyaro uu ku soo ordayay madaxweyne William Ruto uu booqanayay Wajir islamarkaana khudbad u jeedinayay shacabka magaalada Wajir.